iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay soo tarayaan abaaraha daran ee soo waajahay gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada ayaa haddana deegaamada qaarkood xilligan waxa gabaabsi noqday baadkii iyo biyihii taasoo dad badan oo ku dhaqan deegaamadaasi ay haatan haraad la ildaran yihiin hay'adda Islaamiga ee East African Welfare Association Development ee loo yaqaan IWADA oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa booyada biyaha gaarsiisay qaar ka tirsan deegaamada ay afeeyeen abaaraha baan ee xilligan soo waajahay gobolka Togdheer deegaamada ay hay'adda biyaha gaarsiisay ayaa kala ah Hambabali, Unuuley, Ina Cabdijoof iyo Kalqurun kuwaas oo dhamaantoodba ka tirsan gobolka Togdheer waxaana deegaamadani ku dhaqan dad ay ka muuqato diifta iyo dalxumada ay xilligan ku keeneen abaaraha ka jira gobolka Togdheer abaarta iyo biyo la'aanta deegaamadani ka jirta maaha oo kaliya mid saameysay bani'aadamka deegaankaasi ku nool balse waxa kale oo yana xilligan ila daran abaarta jirta xoolaha la dhaqday iyo xayawaanka duurjoogta ah oo iyagu haraad daraadood soo galay tuulooyinka ay dadku ku dhaqan yihiin xilliga ay hay'addan IWADA gaarsiisay booyadaha biyaha ayaa waxa halkaasi ku sugnaa dad noo sheegay in biyahana ay ugu aroor tagaan dhul ay u socdaan 3 habeen taasoo mararka qaarkoodna ay noo sheegeen inayba ku hungoobaan deeqda biyaha ee hay'adda IWADA gaarsiisay deegaamadani ayaa iyagu wax weyn ka taray baahiyihii halkaasi ka jiray iyadoo dad iyo dunyaba ay ku diirsadeen biyahan ee hay'adda IWADA gaarsiisay deegaamadani waa kuwan qaar ka tirsan dadka deegaamadani ku dhaqan oo ka hadlaya xaaladooda iyo duruufaha abaartu ku keentay iyo waliba iyagoo u mahad celinaya hay'adda IWADA ee deeqda biyaha gaarsiisay markaa waxaan ka loo yimi biyo جرينكم مانتا ضمبة إلى عصر كي بيا لوجمي كسرنا يا عيودين وريال هذا واضع كسرنا أيا لوجمي كوا صوي مكمل جده هذا لو شو يبرقه هذا هم ببلي هذاون هاي وأنا كم هاد علينا إن إلهي ما مهله كم هاد علينا تذكر نوجد دقي أنت قصوها وشوي يوحي الله مذا يلوسي وقول مذا أبارها لقى كالمية تذكر ولا ناقش العسن ككالمين يبيها يبات كلا بضبا وقم هاد علينا إلهي ما مهله سفي عن أيان وقم هاد علينا وأنا قلت عينينا وحن كنا هاد علينا تذكر وضعي كشقية اللي بعطونا الصومالي يسوق دي نوك كاني أيان أنا وقم هاد علينا إلهي ما مهله جزاء اللهكم جزاء الله خير لا كجزاء سيء أنت كزاه وصوتين تلوسوا قد سبع ديها هذي نوع معدن لب بودود بهاين بدباي مخشوم ميسا تيك الله ونسبتين إن أنا لحصل وقت بعضه وحنا عصنا لبده بودود من مركورين أنا لفتابا لقط تلاك سنة مركي نوع معدن قلنا وحنا قعصنا مقالة أول لقوه مية هي يدقان كذا بالعالم يدك ayadoo soo guurtada hawd ka soo noqotay iyo tawaqooyin ka soo guurtay baa isugu yimaadeen sidaa darteed markii aan eegnay waxaan codsanay labada boodood inaanan dhaafin ee nolol shubo markii ay boodii qolay wax lagu tari waan waxa ay meesha ku jiray horana wax dadka naafa u wada gaaraya ay noqon waayeen ayuru anagoo ka waramayna halkay aan joogno biyaha noo yimi oo aan ka mahad celinay booyada tuulada Hambabali aan joogno oo aan ka mahad celinay oo ay noo yimaadeen raad lagu qabay balaaran oo kuwa miyiga magaalada qabeen oo baahiduna fara badan tahay baad haday tahay biyo haday tahayba ayaanu sidaa ka mahad celinay oo aanu ku helay labada booyadood ee la noo keenay waxaan codsanay wixii la noo heli karaba iyo wixii deelahay nasiiba dabadiyo gudaheeda magacayga magaalada xalada unuule magacaydana xalada asra cabdi xasan xooli waa kuwaas way xayeesheen dad iyo dunyaba waan liidanay waxa la waxay cunaan iyo waxaanu siino cunto iyo biyo midna uma hayno yaayadaas falka adduunka waxaanu ka codsanaynaa inay cunto iyo biyo si degdeg ah noola soo gaaraan ahida biyaha boqolkiiba boqol bay maraysaa haddaan ku yiraahdo boqolkiiba boqol way dhaaftay ama xad bay ka badan tahay yacni kuma dambaari markaa wax aanu baabuur ka subanna mooyaane wax kale kuma cabno meesha waa qor حتى مركز بيها باهية بيها مريسا سلاس وهير استري تنع نوك انتين دي يعني هي سمفلك انا وين قدوم انا مهدنا والله انكم مهدنا قيانا سو غارسيسي سومال لينا ابارتا هيستا يا بيالان هيستا كميدون بان انا ود دheeraad kama wata Soomaaliland badii abaarto haysatay biyaan idin bada waqti sonay adaalkeeda ma xageeradaas oo soo qadisaan oo dadweynaha sidaa ugu keenteen u soo gaarsiisana way idinka rajaynaynaa waana idinku ducaynaynaa baahi way u dhanta
wixii dadka gargaar u geysanaya ee islaama de waa loogu baahan yahay waa maqlaysaan waa arkaysaan adduunyadana kuwaas ugu filroon waa kuwa halka taagan waad aragtaa iminka iyagoo barkada jooga baan ka jeclaa de wixii dadka u faragodaya ama wax siinaya gidaar walba way yaaliin baahidoodu dad iyo xoolo way yaaliin ilaahay baana lagu baahi bahaaye wax gacan bilaadan lagu baahi sidaasan kaaga baxay xasan caalin oo ka tirsan hay'adda Iwada ayaa u sheegay dadkii deeqda la gaarsiiyay inay hay'adoodu ay ku dadaali doonto sidii ay u sii wadi lahayd kaalmada ay gaarsiinayso dadka ay abaaruhu saameeyeen isagoo ka codsaday ummadda muslimiinta in la soo gaarsiiyo dadkani gargaar degdeg ah ugu dambeyntii abaarta xilligani soo wajahday gobolka Togdheer iyo gobolada kale ee Soomaaliland qaarkood ayaa ah mid ka sii daraysa maalinba maalinta ka dambeysa taasoo dadka deegaamadani ku dhaqani ay u baahan yihiin haddana raxmaadka Ilaahay diin kaalmo degdeg ah oo cunto iyo biyo maxamed caawid maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel TV dhulka ay abaaruhu saameeyeen gobolka Togdheer